anagoo ah koox wariyaal ah ayaa waxaana ka baxnay magaalada Istanbul waxaana u jihaysanay xadka Turkiga iyo Greece. xuduudda markaan tagnay waxaana laga dhigay gaariga booliska Turkiga ayaa waxa ay noo sheegeen inaan adeegsano fardaha. markii aan gaarnay iridka koobaad ee laga galo xuduudda dalka Greece ayaa waxaa noo sheegay inaan xilligan saxaafadda aan loo ogolayn isla markaana aan sugno waqtiga loogu talagalay in ay warbaahinta ay gudaha ay u galaan. intii halkaasi aan ku sugnayn ayaa waxaan aragnay dad Soomaaliyeed oo gudaha ku soo rafaaday oo Istanbul doonayay inay u laabtaan. meel aad ما قيب ساعة جوكتين مركا. waxaan socdaal soo bilawnay kadib markii akhbaar ka soo baxday madaxweynaha Turkiga oo ku ogolaanayo in muddo 72 saacadood ay furan yihiin xuduudaha dalka bad iyo bari iyo meel walba laga soo gali karo marka maanta u dambeysay saacadihii uu qabtay ilaa iyo haddana wax dad gudbay ama meesha ka socda ma jiro kaliya waxaan lagu hayaa xuduudka u dhaxeeya Turkiga iyo Greece cidna uma gudbi karto xuduudka Turkiga meesha soo dhibaato aad badan ka jirto maalin dadka meesha isku jooga waa dhibaateeya waxa dadka lagu buufiyaa suntii dadka ka ilmaysiinaysay marka xaaladda aad bay u cakiran tahay habeenkii waa iska qabo waa dareem kartaa cimilada maxay Yurub ma jirto wax cunto ah ee dadka helaan qofkii lacagtiisa wata mooyaane dad meesha waxa joogda joog kala duwan oo ay ka mid tahay dadka Soomaalida Afrikaan badan sida dalka Itoobiya Iraq Syria Pakistan iyo waxa joogta dalalkan inda yarta dad ka mid ah Uzbekistan ay joogaan. sarkaal ka tirsan UNHCR ayaa waxa uu sheegay in 2 maalin halkan ay joogeen booliska Greece-na ay adeegsanayeen xabadda caaga iyo waliba sunta dadka ka ilmaysiisa. Greece doesn't open the border and when they want to go over the border they're just using plastic bullets, gas bombs to refugees, but they are not opening the gate. They just want to go to Europe and Turkey doesn't stop them. gudaha ayaa noola fasaxay kadibna waxaana goobta ku aragnay wax aad la yaabayso dad gaajahaysa oo banaanka jiifa iyo waliba booliska Greece oo sun iyo waliba xabadaha caaga adeegsanaya. qaar ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhibaataysnaa ayaa la kulmay. soo ridayaan ciyaalka carabta waxoogay qeexeelisay sunanu soo rideen marka iyo biyo kulul hasa oo soo cararna marka naqasaad ku xirmaya marka dadku dhan way soo cararayaan ma garatay waaye maxaa halka u timaadeen inaan dhaafno insha Allah ilaa Yurub aan tagno marka waa fursad maxay laagtahay rajada in laga gudbo xuduudda waa biri saxaan jecelnahay birito insha Allah. xadkan joognaa sidaad u jeediin dadku halkan ay gudbayaan oo ciidamada ilaalada xuduudaha Turkiga ay joogaan qaybta kale ay dadka joogaan kullay dad fara badan oo halkan ka soo noqday ayaan aragnay oo duruuf kala gedisan ama duruuf aad u xoog badan ay ka muuqato dabaylo xoog badan ayaa goobta ka dhacaya halkan waxaan ugu la sugan ama jooga wariyaashii kala gedisnaa adduunka ka socday iyo hay'adda qaxootiga qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ka socda Soomaali fara badan ayaa la sheegay in gudaha ku jiraan bal wixii soo kordhay dib kala soo socodsiin doonaa. dad kale oo Soomaaliyeed ayaa waxaa dhaawacay u soo geystay ciidanka Greece mar ay isku dayeen inay si xoog ah ay ku gudbaan xadka labada dal halka qaar kalena lagu dhacay moobiladii ay siteen. Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal Istanbul.